السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada walaalaha iyo bulshada qiimaha iyo qadarinta mudan ee ku xiran isfahan broso dalkeena baabaho diinteena ciirtayo dadkeena baahan oo waxay doonaanba cunay walaalihii baa isdilay damiirkii baa dhinto isdaba qabta maanay garan xitaa kii digi lahaa ka daayo ku oran lahaa doraad bay gowraceen digsiya heeru ku karay waxaa soo haray dalagan duruuftooday hadlaandantooday goodiyaan wax door iyo horumar male saaxiibayaal walaalayaal anigoo xabiib shakeeti ah waxaan rabaa galabtayto inaan idin la wadaago fariin muhiim ah run ahaantii waxaan rabaa arrin positive inaan idin kala hadlo ma aamusni inta badan waxaan idin hor imaan waayaa waxyaabaha negative ka bulshadayda ka tira batay aniguna ma jecli inaan ku dhex milmo waxa ii muuqata arrin positive oo shirka Djibouti ka soo socda ah ilmaadeerayaal dhammaanteen waynu is ognahay qabyaaladda iyo waxa weeye qof ka jeclaysigu meelna ina gaarsiin mayaan wax wanaaga iyo horumarna inoo keeni mayaan ma yeeli karnaa anagu inaan qurbaha ku duugowno dhasheena meeshii ay ku degi lahayd ama ku nasan lahayd ama ku farxi lahayd waa dalkeennii saaxiibayaal jiilkeennu haddii uu ka qaday faa'iidadaas run ahaantii inta aan jira dawlad Soomaaliyeed ma soo arkine ma ahan ina annagiina u abuurno hadeertaan problem arrin positive la idinkaga baahan yahay insha Allah ta'ala xilliyada shirarka muhiimka ah oo kala socdaan sida midkan hadda Djibouti ka socdo madaxdu isku arkayso Soomaaliyeed insha Allah ta'ala waxa jira dad boonbooniya ama waxyaabo xun wadwada yaan la sii qaadin warkooda insha Allah ta'ala wax wanaagsan iyo wax guul leh baan ka rajaynaynaa dadkaasi dalkeena dhinac kasta oo la taga dhibaatada ama dib u dhac ka jiro inaynu adduunka kale wax la qaybsano marka walaalayaal niyad wanaagsan iyo fikrad wanaagsan ina shirka ku taageertaan baan insha Allah ta'ala idin rajaynaya arinta labaad hadaan u soo gudbo dadka ku xiran isfahan brosom saaxiibayaal aad baan u jecelnahay markasta inaan idinkaga soo farxino intaasi waa inta aan idin awoodno waxa aan dareemayaa anigoo ah xabiib shakeeti idinkoo xanaaqsan markaad channelkeena intaad soo gashaan idinkoo faraxsan ka noqotaan qiimaha ay leedahay run ahaantii sidoo kale to xigmadda iyo murtida iyo maaweelada iyo madadaalada aan idin ku darno kama daalayna marnaba dadkeena Soomaaliyeed waaweyn af Soomaaligii way hayaan run ahaantii laakiin waxa weeye sida asaasaqaayo loo isticmaalaya ama dhaliisha isxagxagashada xurgufta waxa ka fiican sidii farxadda iyo qiimaha iyo murtida iyo mahmaahada lahayd inaan u isticmaalno niman yahow arab aad caws looma tilmaamay waxaynu dhamaanteen u baahanahay waa garananaay farxadda inaan isu soo furnaan rajeynaya arinta labaad waxa weeye walaalayaal anigu de waxaan aaminsanahay qof xunba adduunyada inuuna jirin dadku waa wada wanaagsan yihiin laakiin waxyaabaha la sameeyaa qayb xumaan kartaa qofkii insha Allah wuxuu ku jira Ilaahay annaguna waa ka waaninaynaa rabbinaha ka soo qabto laakiin waxa weeye yaanan la moodin inuu adduunka qof xun jiro ama dadkeenu yeysa moodin hebel waa xun yahay waxa la sameeyo xun qofka anytime buu ka soo noqon karaa farxad iyo gacmo furan inaad ku soo dhaweysid baa lagaaga baahan yahay saaxiib adduunka wanaagsan aad buu u qiimo badan yahay waa ogahay in badan oo idin kamida waxay iga soo codsadaan inaan idin hor imaado haddaan idin hor imaadana hawli ma yaree meesha ma naga deysaan si layfaynaan farxad iyo qosol iyo madadaalo u wada wadaagno iyo waxyaabo badan oo aynaan ogeyn baan halkaan u soo galay waan jeclahay anigu waxaan ahay qof jecel in la wada farxo waxaan ahay qof jecel innaba bulshadu aynan wax dhibaato ah ama muruga dareemin run ahaantii waan ogahay si kastoo aad positive u tahay bini'aadan wax kasta ka filo laakiin waxa weeye aniga niyadeyda waxa ku jira wixii aan bedeli karo inaan isku dayo inaan bedelo de shalayna waxay ahayd iyo maanta waxay tahayba maasha Allah waxa weeye barwaaqo iyo guul waxaan la hadlayaa bulshada ku xiran isfahan brosom galabtaytana clipkan ayagaan si khaas ah ugu soo duubay waxa aan jecelahay walaalayaal insha Allah ta'ala in markasta aad annaga naga heshaan wax aad ku dhiirartaan wax energy wax aad oran kartaan anigoo xanaaqsan baan farxad kala soo noqday laakiin qosolka faraha badan oo meesha ka socda waayadatan dibu eegis in lagu sameeyay noqotay waxa weeye waxaan aaminsanahay anigu war xabiib shakeeti waa ninaan naxli lahayn
xoolaha meesha lagu qalo ka cararaa war uma haysaane odagu wuxuu jecel yahay in tartiib si wanaagsan niyad wanaagsan la isu caawiyo xan fareesha idinma hayno iyo xagxagashee xul iyo xigmad baad annaga markasta noogu soo hagaagaysaan Soomaaliyeedna maanta taaf Soomaaliga cid ka badisa ayaga maba jiraba hadda marka da'da weyn la fiiriyo laakiin bahalku si asaasiga in loo isticmaalo baa waxay keentay in naaxiyadii iyo macaankii ka lumo in waxa weeye si qalafsan marka aynaan u noolayn wax kasta qurux bay yeelanayaan hadda iyo koow hadafyadeena koobaad oo aan ka duuli doono insha Allah ta'ala waxa kamida caruurta yaryar beebiga iyo sabiga soo koraya in aan xaqii luqadda ka caawino idinkana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala wixii aan awoodno waa idin soo celinaynaaye inaad naga joojisaan midda dhibta ah oo tan farxadda iyo qosolka iyo bilaa murugada inoo wadaan biidnillaahi ta'ala waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo guul iyo barwaaqo bashbash gafuuro la gabowaray haddaa sugaysaan xabiib shakeeti oo tartaarmaya yimid